بسم الله الرحمن الرحيم macaamiisheena sharafta leh ee ku xiran shirkadda Dallas Real Estate walaalayaal soo dhawaada ku soo dhawaada gacmo furan ku soo dhawaada qalbi furan ku soo dhawaada adeeg hufan oo idin raali geliya haddaba walaalayaal sidaa nooga barateenba waxaa maanta mar kale idiin soo gudbinaynaa guri iib ah walaalayaal ku soo dhawaada daawasho wacan ka faa'iidaysi wacan waxaa rajaynayaa inaad ka heli doontaan insha allahu tacaala walaalayaal waxaa iib ah gurigan hadda hortaagannahay villada ah waa guri meel fiican ku yaala xaafad istiraatiiji ah xaafadaha loogu jecel yahay magaalada muqdisho ka mid ah kusoo dhawaada walaalayaal waxaan guda gelayaa xogta gurigan iibka ah oo dhammaystiran insha allahu tacaala ka bogasho wacan walaalayaal haddii aan ku bilaabo gurigan iibka ah waxa uu ku yaalaa magaalada muqdishona waxa uu uga sii yaalaa degmada wadajirna waxa uu uga sii yaalaa xaafadda loo yaqaano ceelqalow ama agagaarka isgoyska danwadaagaha ceelqalow iyo danwadaagta iskuma dheera waa isku hal xaafad ama hal soono waana eriyada deegaanka madiina degmada wadajir dadka qaarna waxay dhahaan madiino waa meesha madiina laga galo ama xaafadaha ugu horeeya ee madiina gaar ahaan degmada wadajir madiina waxay ka kooban tahay 2 degmo Dharkeenley iyo wadajir dhankan waxa ay ka tirsan tahay degmada wadajir walaalayaal inaad si fiican u fahanteen ayaa rajeynayaa gurigan laamiga danwadaagta ka soo baxa ceelqalow soo aada ilaa buulxubay soo aada waxa uu ka yahay booska saddexaad guriga waa kana safkan ayuu ku jiraa waxaa laamiga ka xigo oo keliya guriga kasoo horjeeda iyo guriga kale ee laamiga toos u saaran marka guriga saddexaad ayuu laamiga ka naqanayaa guri ayaa laamiga saaran mid ayaa dhabarka ku haayo kaas dhabarka ku haayo ayuu kasoo horjeedaa waa kana keliya waxaa ka xigo gurigan weyn ama jeengadahan oo 2 qayb ah qayb laamiga ku jeeda iyo qayb dhinacaan kusoo jeeda marka walaalayaal waa boos ku yaala meel high glass ah waddo ayuuna leeyahay oo hormarta waddo xoogaa waa iska yartahay laakiin laamiga ayaa gurigan oo kale wadaba u ah maadaama 2 guri bas ee ka xigto walaalayaal haddii aan ka hadlo dhankaas iyo cabirka oo gurigan ku fadhiyo walaalayaal cabirka guriga dhulkaani ka dhisan yahay waa 20 lagu dhuftay 10 waa nus boos finti ayuu asalkiisa ahaa laakiin nus booska noocan oo kale waa mid aad u weyn oo u dhigma boos meelaha qaar ee magaalada ah marka waa 10 lagu dhuftay 20 ama finti bardiyeeshe dadka qaarkood sida u yaqaanaan wejiga hore oo meesha hadda aragtaan oo albaabkii uu ku leeyahay ah waxa uu yahay 10 mitir dhererkana waxa uu yahay 20 mitir runtii waa cabir macquul ah oo hal guri oo fiican loogu talagalay hal family ay degi karaan guri waasac ah walaalayaal haddii aan ka hadlo qolalka gurigan ka dhisan ama waxa uu ka kooban yahay dhismo ahaan 4 qol suuligii musqushi iyo kushiin iyo baarkin barando runtii waa guri dhammaystiran oo dhismihiisana uu fiican yahay keliya xoogaa qurqurxis iyo dayactir ayuu u baahan yahay laakiin dhismo oo weli xoogaa xoogan ayuu u muuqdaa walaalayaal haddii aan ka hadlo
dhankaas iyo wadooyinka uu gurigani leeyahay walaalayaal waa hal jidle. booska waxaa hormara hal wado. sidoo kale jidka oo booska saaran yahay jidka ku xiga waa laamigi, oo laamigi sida hore idinkugu sheegay waxaa ka xigto 2 boos oo kaliya, kan kasoo horjeedo iyo kan kale. laamiga ayuu saaran yahay kaliya, guriga kasoo horjeedo ayaa u dhaxeeya. sidoo kale haddii jidadkiisa laga hadlo waxa uu u dhow yahay laamiga ka taga isgoyska Danwadaagaha ee korontada aada, laakiin kan ayuu aad ugu sii dhow yahay. laamiga korontadoo kale markaa kasoo gashid waxa u jira ilaa 4 block camal oo iyadana aan u fogeyn. haddaad tilmaan kale kasii bixiyo, masalan markaad joogtid isgoyska Danwadaagta oo Ceelqalab soo aadid, jidka 4aad oo kale ama block 4aad ayaa gurigan u galaysa dhankaaga bidix. marka waxa u dhaxeeyaa laamiga Ceelqalab aada iyo laamiga ka baxa Danwadaagta ee korontada ilaa suuqa weyn aada ee Madiina, toos laamigu dhex maraya ilaa xoosh iyo tagaaye. walaalayaal haddii aan ka hadlo jihada u jeesto waa bari ujeed, waa hal jidle bari ujeed ah. haddii aan ka hadlo dhanka dukumentiga, dhulkaani ama gurigani dukumentigiisa waa nadiif, waa dukumentiyadii hore ee Maxamed Siyaad Barre. warqadihiisa oo dhan waa u dhan yihiin, wax ka maqan ma leh, rasiid, sabarloog, warqadihii loo baahnay oo dhan. nootayo alle midaa jeceshahay ayaad kala wareegi kartaa. haddii aan ka hadlo dhanka qiimaha, walaalayaal gurigan waxaa lagu rabaa $85,000 Mareykanka ah, macal dalaal ah, isku dhammaad iyo heshiis. runtii waa qiimo aad iyo aad u jaban, macquul ah, maxaa yeelay waxa uu ku yaalaa meel istiraatiiji ah. laamiye haddii ay ahaan lahayd, suuqyadii, adeegyadii bulshada ee loo baahnay, iyo magaalada meeshuu ugu yaallo oo ah meel aad muhiim u ah. elaboorkii ayaan kaa dheereen, wadadii lambar 4 iyo Soobay dhankaas oo ah magaalada meelaha ugu shidan meel ka mid ah. runtii waxaa dhihi karnaa wuxuu ku yaalaa xaafad aad iyo aad maaragtay muhiim u ah oo dadka ay jecel yihiin. marka qiimaha waa fursad haddii si loo fiiriyo. walaalayaal haddii aan nahay shirkadda Dallas Real Estate waxaa diyaar u nahay inaan soo tusino. haddii aad ku qanacdaan nootayo alle midaa jeceshiin ayaa laidinkaga wareejinayaa. lambarada meesha ku qoran nagala soo xiriira. waa ku mahadsantihiin walaalayaal daawashada muuqaalka iyo ku xirnaanshaha aad ku xirantihiin shirkadda Dallas Real Estate. haddii aad eridan dhulal ku leedihiin waa laydin beec geenayaa. haddii aad dhul rabtiin nala soo xiriira dhammaan magaalada Muqdisho. ugu dambeyn waa ku mahadsantihiin daawashada muuqaalka. kanaalka subscribe noo saara, gambaleelkana furta. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatu.